هو اللي فتح الباب اليوم، هو اللي فتح الباب اليوم لمنتخب قارة أفريقيا أو دمسترن من ألف إلى هي إما سجل أي غير بقولن كوب كأدون كإما سجل أي صبحين إما سجل أي درشين إما سجل أي درشين إما سجل أي كسو قارن محاسة هرمر لشيء كرا والله تابع كرا قارة أفريقيا إما أنت كجرتي كوب كأدون كهدي لده ومحكمة دميدية هذا رأسه تسبسكريب لايك كومنت كانوا لو ذاك وحرا هذا وورالكين محمد فانتاستيكو sida la socono xulka Masar ayaa u horeeyay hadii la dhaho qaaradda Afrika xul matalayo waa Masar 1934 ayay ka qayb gashay markeedii ugu horeysay koobka adduunka waa Masar ayaa u nasiib yeelatay inay noqoto xulkii ugu horeeyay oo matalo qaaradda Afrika 1934 markay taariikhda ahayd ayaa sidatan saddex iyo toban wadan ayaa ka qayb gashay koobka adduunka qaaradda Afrika hadii la dhaho saddex iyo tobankaas wadan sidee u kala qayb galeen iyo min taariikhdooda oo dhameystiran waatan Cameroon ayaa ugu nasiib badan ayaa 7 jeer ka qayb gashay markaana wuxuu noqon doonaa Allah karaal noqdo markii sideedaad ayay kala ahayd taariikhda sidatan 1982 markii ugu horeysay waa Cameroon ay ka qayb gasho Suudaan raafideen 1990kii waa taariikhdii wacdaraha ay ka dhigeen كوبكي لو قبناي إيطاليا يو روجر ميلر كون سجال بقول سجاشي أفرتي يسجاشي سديدي لابد أكون يلابد لابد أكون طبانكي لابد أكون أفريت طبانكي يهدول السجاي لابد يلابد حول نيجيريا يا أصلا كقيب قلي لح جير كون سجال بقول سجاشي أفرتي سجاشي سديدي لابد أكون يلابد أكون طبانكي لابد أكون أفريت طبانكي ولابد أكون سديدي طبانكي نصيب حمو مركان نمو صوبحن dalka Morocco ayaa asna ka qayb galay 5 jeer markaan lix noqon doonta waa taariikhda ay kala ahayd 1970kii 86 iyo 22 hadda la sugayo Tunisia ayaa iyadna sidoo kale inta ka gashay 5 jeer markii lixaadna hadda sugaysa waa 78 waa xulka Tunisia Algeria oo in sanadkan la soo reebay sideetii lixdii 2014 ayay ka qayb gashay Masar oo ugu horeeyay xulalka Afrika kan koodii ugu horeeyay oo usrafta koob adduun ahay 1934 iyo 90kii iyo 2018 markaana waa la reebay nasiib xumo waxa reebtay Senegal sida la soconabo South Africa ayaa idin 3 jeer ka qayb gashay waa 98 2010 Ivory Coast in 3 jeer waa 2006 2010 Ghana 3 jeer ka qayb gashay waa 2006 2010 haddana waa la sugaa doo Allah karaal noqdo saacada kadib koobka bilaabo doono Senegal ayaa in ka qayb gashay 2 jeer 2018 haddana waa sugnaa insha Allah hadoo ay bayiraaho iyo waxa kale ka qayb galay Zaire oo hadda loo yaqaan Congo Dimuqraadiya iyo Togo oo hal jeer mar ka qayb galay waa 13 wadan ayaa matalay qaaradda Afrika adil loo koobka adduunka waa gartay hadda wax matal muxume meel hadda weer ku qaado waxa la taqda loo baahan yahay Soomahan waxa ugu ciyaar badan horto yaani hadii loo ciyaar la dheelay 23 ciyaar waxa dheelay Cameroon 23 ciyaar ay dheeshay laakiin hadii la dhaho dhanka goolasha waxa ugu badan xulka Nigeria 23 gool ayuu dhashay hadii la dhanka rasmada waxa ugu badan xulka Nigeria oo badisay 6 jeer ayay badisay gooshii ugu horeeyay xulka Afrika ayaa u dhashay waxa dhashay xidiga Masar waxa dhashay Abdurrahman Al-Fawzi kulankii eldelayo hay gooshii kuwaad ka dhasheen wuxuu ahay dalka Hungary Majar ciyaartii kula aatay 4-2 gool ayuu ka dhashay waa gartay dhibacdii ugu horeysay oo xul Afrikaane oo helo waate wadankeena keenay waxa ku guuleystay xulka Maghrib ayaa ku guuleystay dhibacdii ugu horeysay markoo baraja la galay dalka Hungary ayaa baraja la galay 1970kii markii ciyaarta kula aatay 1-1 أول حلك أصاب حي وريق اللحية تونات واكي وحلك مغرب أو أصاب حي كون سجال بقص ديتي اللحدي وريق اللحية تونات وحلك أوري وأفريقيا أو أصو جود باي وريقي
لحية تونات لكن حلك ugu horeeyay hadii la dhanka reesmada oo saddex dhibac la yimaado waa xulka Tunisia oo ku guuleystay inay ka awood sarayaan xulka Mexico 3-1978 hadii la dhaho yaa wax la taabo kara ama guul la taabo kara maanta ka gaaray xulalka Afrika koobka adduun waxa saddex wadan ayaa ka gaartay yani guulooyin maanta lagu faani karo waa Ghana, Senegal, Cameroon. 1990 Cameroon ayaa wacdaro dhigday wacdaro la yaab leh markay koobka Italian lagu qabay ka gaartay meel wanaagsan wareegga sideedaad ugu gudubtay. ممكن يجيب جول وجول يا خبر دخل التاريخ وله حق يرقص زي يوم رومانيا دخل التاريخ ميلا مش ممكن waxaa lamay 2002 xulka Senegal markuu Faransa garaacay oo waqtigaas xaamil laqabka oo koobka wadatay laakiin nasiib xumo wareegga sideedaad uu dhaaf waayay منتخب السنغال حلو برافو جميلة والله اللي عامل الشغل حاجده هو اللي تعبهم رهقهم عملهم مصيبة هو البعبع لمنتخب السنغال هو اللي واخدهم شوارع شمال يمين وفعلا waxaa saddexay xulka Ghana 2010 oo awal marra lagu qabtay qaaradda Afrika South Africa lagu qabtay waxay gaareen wareegga sideedaad laakiin nasiib xumo afraad uu soo gudbi waayeen markii banooniga gacanta uu ku baxshay Suarez ayaa nasiib xumo ay naqatay inay soo gudbi waayeen wareegga afraad ورقة حمراء لا نريد أن نكون مكان مشجعي الأوروغواي ووضع خانة في نصف النهائي جيان iyo Nigeria oo 94 taariikhda wacdaro Talyaaniga beeban ku baxshay waana intaas taariikhda Afrika kaamile min alif ilaa ya iyo intii ay koobka adduunka kula dagaal tagday iyo taariikhdeedo dhameystiran waa naga intaas hadaan ku soo tolal qaalay subscribe ka laga commentiga waa noo dhiirigelin waa walaalkii maxamed fantastic oo dhahay inta dib dambe u kulmi doono tan barnaamij lamid oo xiiso leh hadan waxaan ileenahay fi amaanillah mama Afrika